waanku salaamay saaxiib. Waxa gudaha ku jira ayaa kugu lama fiicnid. dawana waad u baahan tahay. Samaha dawooyinka lagu iibiyo ama lagu gado farmasiyada, waxa aad dareemaysaa in laabgelintu ay kugu yar tahay oo aad u baahan tahay in laabta lagu geliyo. Habtani weli quruurada dhakhtaradu kuma aanay shubin oo farmasiyada lama dhigin. waxaad u jeclan tahay inaad udugsato carafta qofka aad jeceshahay ee ka durugsan. xitaa urtiisa ayaa kugu filan inaad dareento fayoobi iyo badqab. farmasiyaasha inaad u sheegto oo ay qof waalan kumadana waad ka baqaysaa, ama waxaad ka baqaysaa inay ku yiraahdaan waxaanu haynaa bedelkiisa oo aad adiguna ku tidhaahdo ku bedelaadiin oo wax bedel u noqon kara gacalyahayga ma jiraan. waxaad u baahan tahay qalbigaaga wax maydha oo adduunkan uu noo sakhaynaya saaxiib. si kastaynu ugu dadaalno saafi ahaanshaha qalbiyadeennana waxayuunbaa kusoo duulduulaya oo kusoo gaadhaya oo marada cadi way ka uskagoobi ogtahay dharka kale. qalbiyada cadcad ee saafiga ahina waa sidaas oo debci kasta oo siloon oo ka soo agdhowaada barmadow ayuu ku reebaa. waxaad tabaysaa garab aad ku tiirsato, ammaankaas ayna dhakhaatiirtu awoodin noociisa iyo sifooyinkiisa inay qoraan, farmasiyaduna aanay ka heli karin marfashka daawooyinka. si kasta oo farta lagu qoro ay u caddahay ay u muuqato garab, waa erey keliya oo ka kooban 5 xaraf, far la arki karana ku qoran, balse waa dhif iyo naadir marla arag ah. garbaha u qalma in lagu tiirsado oo la cuskado. waxa aad moodaa inaad baadi goobayso calacalti male ama tuka baalcad. waxa aad raadinaysaa cabitaan ku ilowsiiya. waxaad maalin oo dhan naftaada ku mashquulinaysaa hawl adduun si aanay u xusoon taltabyo iyo jeelanaana u dareemin. haddana marka uu gobolku dumo ee habeenka haafkiisa dambe la gaadho, qalbigaaga iyo qudhaaduna ay qol ku keliyaystaan, xiisayaashaadina ay soo burqadaan, boholyogaaguna uu dabarla-aan soo kaco, ayaad hal malqacad ka darsan lahayd oo ladi lahayd. habeenka uu qofka xiisu hayo aad ayuu ugu dheeryahay saaxiib. magam oo qof ay laabtiisa ka bannaan tahay bohol, qof uu oo madaxiisa saaro mooyaane aan buuxsamaynin. waxaad u baahan tahay quruurad yar oo ilin ay ka buuxdo oo aad indhaha ku shubato markaad oohin damacdo ee aad awoodi weydo. waa suura saaxiib in unug kasta oo jidhkaaga ka midi ilmadu ka burqato indhahaaga mooyaane. nefiska ugu badan waxaa qofka siiya waa oohinta, laakiin mararka qaar ma awoodno. waxaad u baahan tahay balastar baandhays aad ku duubto dhammaanba dhaawacyada aan la arkaynin, dhaawacyadaas dhiigga saydhinaya ee furan ee aad marba taabanayso bal sida ay yihiin. mararka qaar waxaad niyeysanaysaa inaad ka bogsatay maadaamaad in muddaa ilowsanayd amaad is-ilowsiinaysay. isla marka aad keligaa noqoto waxaad arkaysaa dhaawacaagii oo weli qoyan oo dhiig baxaya. dhaawacyada ugu xanuunka badani saaxiib waa kuwa ruuxda. nabadiina saaxiib. waanku salaamay saaxiib. haquusan saaxiib. ugu dambayn dadka isjeceli way kulmayaan. ha ilaawin kala dheeraashihii yacquub iyo yuusuf, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. koox gardarro wadda ayaa kala fogaanshahaas ka shaqaysay. walaalo qalbi adag oo aan digigaxayn ayaa ka arrimiyey. socoto xorta addoon ahaan uga gadaya suuqyaduna way heleen. boqorkii masarna wuu iibsaday, xaaskiisiina xabsiga ayay gunta u dhigtay. kadibna rogaal celiska dhacdooyinkaasi waxa uu ka soo bilaabmay riyadii boqorka. yuusufna xabsigii uu ka soo baxay, waxaanu noqday madaxda sare ee masar. ilaahayna kulan barkhadeed ayuu isugu keenay isaga iyo ehelkiisa. hal riya ayaa wax walba dabagedisay oo dhanka wanaagsan u weecisay. hadhayalsan riyada aan kaa leeyahay, mar walba xasuusno madaxaaga ayaan masaxayaa. waaqicana waxaan u akhrinayaa sidii inuu riyo yahay. ha u bixin saaxiib, masaafadu dadka ma kala fogayso isumana dhowayso ee qalbiyada ayaa doorkaa iska leh. adiguna xawlalmariidka garka wadnahayga waad iiga dhowdahay. habayna kala dheereeyaan masaafooyinkuye. yaqiin badan oo ilaahay lagu qabo saaxiib iyo dadaal yar oo mahuraana ayaa arrinkaas kaafinaya. haddii dadaalkaa yarka a laga maarmi karana, maryama ayaa ka fursan lahayd markii taagdaraalkii ugu dambaysay ay ka maraysay. se waxaa lagu yidhi gilgil jirridda geedtimireedka, midho bislaaday oo curdina ayaa kuugu soo daadanaya. nabadiina saaxiib. waa baalal ka mida dhiganaha waanku salaamay saaxiib ee uu qoray aadam sharqaawi, afkeenna hooyana uu rogay aadan khadar cali. nabadgelyo.